Min Ho oo shaki ku jira inuu qayb ka noqon doono kulanka lugta hore ee wareegga afardhamaadka tartanka Champions League iyo kulamo laga dheeli doono qaaradda horyaalada Yurub. warkaasi oo dhammaystiran qaybaha dambe ee barnaamij wareedka duurnimo ayaad ku dhagaysan doontaan. marka hore Shaafici Maxamuud Nuur Shaafin oo garabkayga badax fadhiya aan ka codsaday inuu dhagaystayaasha u soo gudbiyo warka kooban. aad iyo aad u mahadsan tahay Maria Aadan Cali Herlin. inuu ku bilownay Manchester United ayaa lagu dhaleeceynaya inay weysay suurtagalnimada ay ugu baaqi kartay Virgil van Dijk intii uu ka tirsanaa kooxda Southampton fasalkii 2018 ama sanadkii inuu ka soo gudubnay. suuqii January 2018 United ayaa heli kartay fursad ay kaliya ugu falaashi kartay Van Dijk si ay kooxdeeda ugu soo kordhiso, balse 27 jirkaas ka soo jeeda wadanka Holland ayaa ugu dambeyn ka mid noqday naadiga Liverpool waana xidiga ugu wanaagsan Premier League fasalkan. ciyaaryahanka difaaca u ah Liverpool ayaa qiimo qaali ah ku tagay qalcadda Anfield Road oo markaasi dhacda gobolka Merseyside cariga England, waxaana hadda la leeyahay sida ay ka shafayso Mail Online United waxa ay weysay suurtagalnimada ay xidigaasi ku soo qaadan kartay. dhanka kalena macalinka kooxda Leicester City Brendan Rodgers ayaa isagu diyaarinaya qorshe uu Leicester City kaga yeeli karo inuu waqti badan sii joogo amaba ay 40 milyan iyagu ku soo qaadan karaan ciyaaryahanka qadka dhexe ee wadanka Belgium ninka lagu magacaabo Yuri Tielemans. suurtagalnimo badan ay keenaysaa ayaa leeyahay in ninkan Brendan Rodgers uu kooxdiisa ku soo kordhiyo xidiga badan isagana uu kooxda sii joogo Monaco ayaana xidigaasi laga soo qaadan karaa. dhanka kalena Real Madrid ayaa doonaysa soo qaadashada qaar kamid ah kuwa ugu wanaagsan kubadda cagta fasal ciyaareedkana ka tirsan kooxa ay ku faanayaan sida Eden Hazard, Paul Pogba, Pogba, Kylian Mbappe iyo Neymar Jr. Mbappe wuxuu kamid yahay xidigaha ugu qaalisan ee kubadda cagta iminka, balse waxaa la leeyahay Hazard ayaa laga yaabaa inuu ku biiro naadiga Real Madrid marka suuqa kala iibsiga uu furmo. Juventusna waxay qorsheynaysaa inay soo qaadato ciyaaryahanka waayeelka ah ee Tottenham ka tirsan wadanka Belgium ka soo jeeda kana qayb ahaa Belgium ka gaaray kaalinta saddexaadna kaga dhameystay koobka adduunka 2018 ee Toby Alderweireld. 30 jirkan ayaa lagu qiimeeyaa 25 milyan. United ayaa maalmo badan isku dayaysay inay soo qaadato, laakiin hadda Calcio Mercato oo fadhigeedu yahay Spain ayaa daabacaysa in Juventus ay xidigaasi soo qaadan karto. warkii koobnaan dhageystayaal waa inaga intaa.